رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. codsigeen walaalayaal waa in aad subscribe noo saartaan, kabacdi gambaleelkana aad furataan, kabacdi like-tana aad noo saartaan, weliba noogu dadaashan like-ta, kabacdi share-na aad dhahdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله كسو دوادا شيخ ريمي جانل. waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo ummadda waxay isku raacday in magaranaysa magaca la sheego. haddii aan magac la sheegin aan la aqoon karin qofka riyada soo weydiiyey. sidaas daraadeeda aniga shuuro ayaan u baahnaa, wada tashi waan idinla tashtay, waad ii sheeg adiga go'aamiseen. 97 commenti ah ayaan kasiyar ka akhriyay. kastirad aan ka akhriyay waxaa ii soo baxday in 12 qofood ay dhaheen magac hala sheego, in 2 qofoodna ay dhaheen magac hala qariyo. sidaas daraadeeda insha Allah haddii riyo aad u fool xun aniga aan dareemo, markaas ka bacdi insha Allah waxaan isku dayayaa inaan magac ka gudbo riyada leh aan sheego, qofka isaga ay fahmay. laakiin badanaa waxaan sheegi doonaa باذن الله magacyada. haatan waxaad ku soo dhawaataan jawaabihiina ee commentiga casharkii ama magaranaysaa videogii aan soo gelinayay xalay commentigiisa ayaan rabaa inaan ka jawaabo. sidaas wala socda. su-aasha ugu horeysa waxay naga soo gaartay xamda naasir. sheekh mar kale waxaan ku riyooday aniga oo kacbada dhexdeeda inta la ii furay ku tukanayo 2 ragcadood oo aad u faraxsanahay. insha Allah kacbada lagu tukadahay salaadood way fiican tahay, haddana kacbada ayaad ku tukanaysaa, haddana maasha Allah aad bay u wanaagsan tahay. haddaadan xajka aadin waxa weeyaan acmaashaada ilaahay ayaa wuxuu ka dhigay maqbuulo, qof wanaagsan ayaa tahay, xajka ayaad aadaysaa بإذن الله الكريم. دادن حجنين إن شاء الله. هدي أد حجدنا إن شاء الله مقرنيسا وحي كفر ميسا وناك أورن أيا كوسو أرورايو، يعني فرج أورن أيا كوسو أرورايو بشاريسو. إذل عبد الله محمد وحيد هذي. السلام عليكم شيخ إلهي خير هكوسيو وحان كوريو ذي انت أوغو بدن ميلاد دوك دور aniga oo joogo ama beer shukran. maasha Allah dooga iyo beeraha ay sheeg adiga aad bay u wanaagsan yihiin. haddii adiga asxaabul ciyaal adiga aad tahay, awlaadaada ayaa dad culimo dhaqaali yani hodan noqon doonaan biidnillah. haddii adiga ciyaal aadan lahayn ii sheeg adiga ayay kugu furmayaan, faraj ayaa ilaahay kuu furayo, hodan ayaad noqonaysaa biidnillahi alkariim. haddii aadan guursaninna ishag adiga nin hanti leh maba wanaagsan, asxaabul ciyaal badan ka dhali doona ayaad guursan doontaa. wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. su-aasha xigta waxay naga soo gaartay saddexaad ama afaraad. su-aasha afaraad Aamina Maxamed waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday sujaayad. waxaan kaloon ku riyooday timahayga oo qurux badan oo fayranaya ama shanlaysanaya. labada riyo ii fasir. waxaan ahay gabadh single single gorob ma laga wadaa mise gabadh ayaa laga wadaa? waxaan ahay gabadh single gabadh keligeed nool aan u fahmaysaan u malaynayo, amaba keligeed joogto oo yani lamaana aan ahayn. insha Allah sujaayada riyadeeda way fiican tahay, timahaagu qurux badan oo la feeranayo way fiican tahay, dayman lagu leeyahay ayaa kaa bixi doono. ii sheeg adiga hadduu alla u kuroon yahay, salaadaadana ii sheeg adiga salaada 5 waqtigeeda ku tuko. sujaayada waxay tilmaamaysaa 2 qofood ayaa arka, qofka aan salaada laazimin tuko ayaa la leeyahay, iyo qofka salaada laazima midka tahay ilaahay ayaa og. laakiin waxaan hubaa in barwaaqo ay ku soo socoto, timaha quruxda badan aad shanlaysanaysid, culays baa kaa degi doono biidnillahi alkariim. waxaa su-aasha shanaad ay naga soo gaartay Caaisha Xasan. sheekhu jazaaka allahu khayr, dhowr mar aan ku weydiiyey waxaan ku riyooday
guriga deedkiisa oo geed cagaaran ka soo baxayaan dhowr mar. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. geeduhu cagaaran way fiican yihiin, laakiin geedka magaciisa nooma aad soo sheegin, caleentiisa qaabka ahayd nooma soo sheegin, qaabku u baxay nooma aad soo sheegin, laakiin geedka gebi ahaanba wuu fiican yahay. haddii aad noo kala sheegi lahayd anagana waa kuu kala sheegi lahayn. wallaahu subxaanahu watacaala aclam. su-aasha xigta waxay naga soo gaartay cabdullaahi cali nuunow. asalaamu calaykum sheekh, allah ku barakeeyo. aamiin, adna allah ku barakeeyo. sheekh, waxaan ku riyooday buu yidhi shaatigayga oo laf iyo dhagax ku xiran. yaa laf maa dhahday? laf iyo dhagax ku xiran, weliba gacanta bidix. laf iyo dhagax ayaa ku xiran gacanta bidix. sheikh iisoo fasir insha allah. haddii adiga qof wanaagsan adiga aad tahay, riyadana way ku wanaagsan tahay. haddii adiga qof xun aad tahay, shantood salaadood waqtigood aadan ku tukanaynin, xanuun bay tilmaamaysaa. ilaahay ha kaa yasiro. wallahu subxaanahu watacaala aclam. the best decoration. asxaabay, anaga ingiriiska kuma dhawaaqi naqaano, haddaan qaladno ii sheeg adiga, hanala yaabina insha allah. asalaamu calaykum, waxaan ku riyooday xaas ayaan ahay. waayahay, ninkayga familigiisa ayaan la noolahay. walaalihiisa mid ka mid ah ayaa mar walbo ku riyooda isaga oo ii galmoonaya. haye iisoo fasir. waayahay, laba mid bay noqonaysaa. midda koowaad waxa weeyaan, waxaad tahay qof qaraabo goys ah. qofka qaraabada gooya heer wuxuu gaari doonaa, iisheeg adiga, iisheeg heerkaas ayuu gaari doonaa. qaraabo goysnimada ma fiicno. qaraabada xiriiri ayaa lagu leeyahay, qaraabo xiriir ayaa lagu tilmaamaya. mideeda kale labaadna waxa ay tahay, ninkaaga haddii uu kula joogo arrinkaas adig aad arkaysid, iisheeg adiga arrin shaydaan uu wato waaye, ilaahay kaa yasiro. haddii ninkaaga uusan joogin, arrin shahwo wadato waaye, saas oo kale ilaahay kaa yasiro. kor iyo hoosba ma fiicna. riyadaasaytoole qaraabo goys ayaa ugu weyn. qaraabo goys ha noqonin. qaraabo goosyada ayaa riyadaas oo kale arka. wallahu subxaanahu watacaala aclam. su-aasha xigta waxay naga soo gaartay 7 amaba ma garanaysaa 6. sharaf xuseen. asalaamu calaykum sheekh riimi, allah ha ku barakeeyo. riyadayda ma aad arkin miyaa? sharafay, riyadaada ma aad arkin? haddaba magacaaga waan arkay, mar horena ma arkin. insha allah haddaan arko san haddaan u sheegay ayaan u sheegaya. faadumo xasan. tan shiikhow tii labaad waaye. tan tii labaad waaye. inta badan waxaan ku riyoodaa kabaha oo iga lumo oo aan waayaa. meel ay iga dhumeen waa raadiyaa. meesha iga dhumeen waa raadiyaa, mana heli waaye kabahayga. jazaaka allaahu khayr walaalkay ayay dhahday. waa mahadsan tahay insha allah. riyada kabaha lagu waynayo ma fiicna. maxaa yeelay ninkaaga, laakiin ima soo kala sheegin nin inaad magaranaysaa ku qabo inkade. nin uu ku qabo ninkaaga xaqiisa ma gudanaysid. haddii nin uusan ku qabinna, yacni qof oo waxaa tahay wax qarinaya, yacni xuquuqda ragga ma aaminsanid. ilaahay ha kaa yasiro. ma fiicno. kabaha waayida ma fiicno. yacni ninka xaqiisa ayaad magaranaysaa la'dahay. waad fahantaa u malaynaya. su-aasha 8 waxay naga soo gartay ismaaciil moxamed. maasha allah sheekh, ilaahay dartiisa ayaan kuu jeclahay. sidaad allihii ii jeclaatay dartiisa adna allah kuu jeclaado. runtii sheekheena aan wada jecelnahay ayaa tahay sheekh muraad ayaan leeyahay. maasha allah, ilaahay hanoo kaa daayo aakhiro iyo adduun. insha allah ismaaciil moxamed, haddii adiga aad ka wado muraad ayaan leeyahay, iisoo duceeya. waa kuu soo duceynaynaa insha allah. aamiin dheh. muraadkaaga allaha sahlo. inta muslimiin ah imaqlaysa muraadkeeda allaha sahlo. inta ma garanaysaa guurdoonka ah guur wanaagsan allaha siiyo. inta hanti doonayso hanti xalaal ah allaha siiyo. inta ma garanaysaa adduunyo, inta doonayso 3G gaari, gabar, guri allaha siiyo insha allah, oo xalaal ah laakiin oo wanaagsan
إن شاء الله أنت ساس أيان أفهمي قرآن ساس أيان أقرنت وما تسنتهاي سؤال سجلات وحين جسوا قرتي هذا علي شرف آيات مدنتهاي إيوه قدرين maahan in lagu gefo ma ahan waan ku cusbahay channelkaaga su'aalahayga haddaad aragtay ii soo fasir bilis insha Allah waan kaaga mahadnaqayaa insha Allah fartuun cabdi assalaamu calaykum sheekh Allah ku xafido waxaan ku riyooday aniga oo imtixaan ku jiro imtixaanka iskuulka mana kasaayi oo mar walbo warqad oo eber ah ayaa la ii dhiibaa waxaan ahay xaas riyadan waxaan jeclahay in aan mar aniga aan fasiray insha Allah xaas ma yani inaan xaas tahay waa ii soo sheegtay laakiin caruur ma leedahay caruur miyaad doonaysaa ii sheeg adiga yaa kula nool intaas ii soo celi mar ayaan ka jawaabay laakiin intaas mar iigu soo celi insha Allah waa iga codsi فائزة حسن شيخ وحن كوريودي أنيقو أو كور لا إيوادو هاي مركاسنا عيدنا أيسان إيقاذينين كليغيغا كور أسعودو شيخ إي فسر غير الله كسيه هدي أديغا إيشاك أديغا فائزو حالة هذا ما شاء الله ورياه bal haddii adiga yani ii sheeg adiga heer aadan filaynin haddii adiga aad gaarto bal hana ilaawin ducada hanaga ilaawin yani dhan kasta hanaga ilaawin kor ayaad u socotaa khalaas saa u socotid waaye waa duuli haysaa insha Allah horumar ayaad gaaraysaa si fudud ayaadna ku gaari doontaa biidin ilaahay ha kuu kaso riyadan su-aasha xigta waxay naga soo gaartay ismahaan cali assalaamu calaykum sheekh khayr badan Allah ha ku siiyo aniga iima aad soo jawaabin waxaadna ii saartay loof waana markii labaad insha Allah marka xiga ayaan sugay jazakallahu khayr hama ishak ismahaan magacaado iga soo horbaxo waa ku dhijinaya insha Allah laakiin doo iga soo horbixin adna iigu soo celi ha ka daalin anima ka daalayay naciimo cabdi nalka laakiin sidee nasiib ku yeelatay inaan mar kasto ii sheeg adiga magaceeda ani aan arko nalka cadeey yaa inaan mar kasto aan arko qoraalkaaga mar yani kii hadaayay tole waa ku jiraa kanna waa ku jiraa mid kasta waa ku jiraa sidee ku noqotay marka ma fahmi kari waxay dhahday nacim nalka jirkayga wax ma mariyo sheekh jazakallahu khayr haa gabadhii shalay waay alloor marka ayuubnaas ayaa ku hayo nalka ayuubnaas ayaa ku hayo waayo nalka ayaa lagu dhahaa intaasba dhibkaaga waaye ilaahay magaranaysaa ha ku caafiyo deeqa xasan assalaamu calaykum sheekh riimi jazakallahu khayr sida fiican oo aad noogu fasirayso waxaan ku riyooday aniga oo baasto macaan oo suuga leh u qaybinayo rag oo weliba aad u faraxsan ii fasir sheekh insha Allah baastada arzaaq waaye oo la quuto la cuno aad bay u wanaagsan tahay ilaahay ma garanaysaa khayr ha ka dhigo yani waxa waaye rag badan ayaad dhali doontaa ilaahay arzaaqda ayuu nooc raashin keliya ma aha awlaadda waa arzaaq soo ma rag badan ayaad dhali doontaa ilaahay ha kuu sahlo wallahu subxaanahu watacaala aclam intaan ayaan ma garanaysaa kusoo gabagabaynayaa waxaan helay nafashadaan bay ka ahaadeen waxaan hagaaji ajar Allah naga siiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.